أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys ولكن أنا بنور حسن حتى سودواتين كانال كان مقال بالراكشن إن شاء الله ما أنت برامج كان أدي علينا حارة وينهم كل وداقو هدي أدي استعماشيد ويندو 10 qaabka passwordkaada aad ugu bedeli kartid sawir marka si aad u fahantiin qaabka looga dhigayo computerkaaga passwordkiisa sawir aynu gudgalno barnaamijkeena ugu horeen guys waxaan ka codsanayaa intaanu gudgalin barnaamijkeena videoga inaad like saarteen like muuqaalku waxa u badan ay u tartaa YouTube-kana dad kale ay sii gaarsiinaya aad u mahadsantiin dhamaantiina marka si aad ugu dhigtid computerkaaga passwordkiisa sawir waxaad soo furaysaa calaamadan window aad soo furaysaa calaamada window-ga marka soo furtid window icon-ka kadib qaybtan waxaad ka dooranaysaa account-kaaga ama magaca computerka aad ku isticmaalaysid ama waxyaabaha ku qoranba meesha uu kaaga soo muuqanayo sawirka profile-ka ku saaran account-kaaga magaciisa aad ku dhufanaysaa account-kaaga magaciisa markaad ku dhufatid qaybtan ay ku soo muuqanayso log iyo sign out-ka iyo sidoo kale account setting-ka waxaad ka dooranaysaa change account setting aad ka dooranaysaa account setting markaad soo dooratid oo information-kan sidan uu kugu soo muuqdo dialog box-gan qaybtan gacantaada bidixda waxaad ka dooranaysaa sign in option-ka aad ka dooranaysaa sign in option-ka markaad soo dooratid window-gaaga waxyaabaha aad ku xiri kartid ama password-da aad ku xiri kartid ayaa ku soo muuqan doono sida window hello face-ka inaad ku xiri kartid iyo fingerprint sidoo kale pin inaad ku xiri kartid security key password-ka caadiga aad taqaaneen iyo sidoo kale qaybteenu rabno inaynu ka hadalno waxa waaye picture password-ka waaye picture password-kan qaabka loo isticmaalayo aan rabaa muuqaalkan inaan idin la wadaago marka computerkaaga si aad uga dhigtid password-kiisa sawir waxaad ku dhufanaysaa qaybtan picture password aad ku dhufanaysaa marka midna xasuusno waxyaabahan haddii ay ku soo muuqan waayaan vershamadii ugu dambeeyay ayaa lagaga baahan yahay computerkaaga inaad ku shubatid Windows-ka ama aad update gareysid sidoo kale aan idin la wadaago marka computerka ama window-ga qaabka loo update gareeyo window-gaaga marka si aad u update gareysid waxaad imaanaysaa qaybtan statiga ama calaamada window icon-ka aad soo furaysaa sidoo kale waxaad ka dooranaysaa meeshan setting aad ka dooranaysaa setting marka soo furtid qaybtan hoose waxa ku yaalo update and security ku yaalo marka waxaad ku dhufanaysaa update and security ku dhufanaysaa marka waa inuu wireless uu kugu xiran yahay computerkaagana qaybtan aad ka update gareyn doontaa insha Allah marka qaabkan loo update gareey hadaba meeshii hadaynu ku laabano marka meeshii hadaynu ku soo laabtay qaybtan si aan ugu xirno marka computerkeena passwordkiisa sawir qaybtan waxaan ku dhufanayaa picture password aan ku dhufanayaa sidoo kale qaybtan waxaan ka dooranayaa add aan ka dooranayaa aad markaan ka doorto wuxuu ku soo saari doonaa computerkaaga passwordkiisa default-ga oo kugu xiran ay ku soo saari doonaa marka passwordkiisa aad gelin doontaa insha Allah computerkaaga passwordkiisa markaad gelisid qaybtan wuxuu kugu tusi doonaa qaabka loo isticmaalo picture password-ka window-ga marka almuhim waxaad ku dhufanaysaa qaybtan oo ay ku qoran tahay choose a picture ku dhufanaysaa choose a picture markaad ku dhufatid waxaad soo dooran doontaa sawirkaad u baahan tahay inaad password ahaan inaad u isticmaashid marka aniga hadda waxaan soo dooranayaa sawirkan oo window-ga calaamada window-ga aan soo dooranayaa qaybtan shaashadan intaadan use this picture aadan ku dhufan meeshii aad u baahan tahay aad ku aadinaysaa inaad ku xiratid drag and drop aad sameyn kartaa ama waad dhaqaajin kartaa sawirkaaga hadhow si perfect ah si uu kugu soo muuqdo left click aad dhabsiinaysaa kadib meeshaad u baahan tahay aad u jiidaysaa aniga intaan aan ugu baahanahay calaamadan window-ga inaan u isticmaalo password ahaan kadib qaybtan waxaad ku dhufan doontaa insha Allah ay ku qoran tahay use this picture aad ku dhufan doontaa kadib wuxuu ku soo saari doonaa 1 2 3 gan ay ku soo saari doonaa 1 2 3 gan waxay ka micno tahay sawirkaad u baahan tahay inaad ku xiratid password ahaan aad u isticmaashid ayaad saddex mar meelo kamid aad click ku siinaysaa marka si aad u fahantiin tusaale ahaan hadda meeshan aan click ku siinayaa sidoo kale qaybtan kale ayaan click ku siinayaa sidoo kale qaybtan kale ayaan click ku siinayaa marka meelo kala duwan ayaad click ka siin kartaa sawirkaaga inta ku soo muuqanaysa sawirkaaga haddii tusaale ahaan qof uu yahay tinta ama sawirka wajigaaga haduu yahay tinta aad hal mar click siin kartaa kadib afka aad click siin kartaa dhigta aad click siin kartaa marka waxyaabaha sawirka meeshaad u baahan tahay aad click siin kartaa kadib wuxuu ku leeyahay confirm si uu sameeyo mar labaad ku soo celiyo ku leeyahay passwordkaaga si aan marka confirm aan ugu sameeyo processka haday aan maraya qaybtan aan click ku siinayaa sidoo kale qaybtan kale
kadib congratulation ayuu leeyahay finish aad ku dhufanaysaa. finish hadda markaan ku dhufto hadda computerkeena passwordkiisa wuxuu isu bedelay sawir ayuu isu bedelay. marka si aan u aragno computerka aan log gelinayaa. wadu jeedinayaan filayaa computerka hadda markaan log galay wuxuu ii soo saaray sawirka aynu soo isticmaalnay password ahaan u soo isticmaalnay uu ii soo saaray. marka meelihii haday aad soo dooratay saddexda mar click aad soo siisay hadii aad click siisid si direct ay u furmi doonaa. sidoo kale waxaan idin la wadaagayaa qaabka sawirka aad soo isticmaashay password ahaan u soo isticmaashay qaabka loo remove gareyn karo computerka loogu remove gareyn karo passwordkaas. waxaad imaanaysaa calaamadda static ayaad imaanaysaa. sidoo kale waxaad soo furaysaa account setting-ka ayaad soo furaysaa. account setting-ka markaad soo furtid qaybtii waxaad ku soo laabanaysaa sign in option-ka aad ku soo laabanaysaa. sidoo kale waxaad dooranaysaa picture password-ka aad dooranaysaa. picture password-ka markaad dooratid hadda uu ku xiran yahay window-geena picture password. marka qaybtan waxaad ku dhufan kartaa remove aad ku dhufan kartaa waad ka saari kartaa. sidoo kale haddii aad u baahan tahay sawirka inaad bedeshidna waxaad ku dhufanaysaa change aad ku dhufanaysaa. waxaan rajeynaa dhammaantiin aad wada fahanteen guys. muuqaalkana maanta waxaynu ku baranaynaa qaabka window-gaaga aad ugu xiri kartid sawir password ahaan aad u isticmaalaysid. walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.